waxay gaadheen dalka gadarayni ay ka soo horjeeday geligii. goortuu dhulka u dilay waxaa la kulmay nin magaalada ka yimid oo jinniyo qaba. waqti dheer dhar ma sidan jirin, gurina ma joogi jirin, laakiin xabaalaha ayuu dhex joogi jiray. goortuu arkay ciise ayuu qayliyey, hortiisana ayuu isku tooray oo cid weyn ayuu ku yidhi, maxaa inoo dhexeeya ciisow, adigoo ah wiilka ilaah sarow, waxaan kaa baryayaa haysilcin. waayo wuxuu jinnigii wasaada lahaa ku amray inuu ninka ka baxo. maxaa yeelay marar badan ayuu qaban jiray oo waxaa lagu xidhi jiray silsilado iyo bircabo oo waa la ilaalin jiray. silsiladihiina wuu iska goyn jiray oo jinniguna cidlada ayuu u kaxayn jiray. markaasaa ciise weydiiyey oo ku yidhi, magacaa? oo wuxuu ku yidhi, liijoon. waayo jinniyo badan ayaa galay. markaasay ka baryeen inaanu amrin inay Yeruusaalem tagaan. halkaa waxaa joogay daaqsin doofaaro badan ah oo buurta daaqaysa. waxayna ka baryeen inuu u fasaxo inay kuwaas galaan. kolkaasuu u fasaxay. markaasay jinniyadii dhiigii ka baxay oo doofaaradii galay. daaqsintiina jidhka hoostay uga yaacday ilaa badda, wayna ku baktiyeen. kuwii daajin jiray markay arkeen waxaa dhacay ayay carareen oo dadkii magaalada iyo beerahaba ayay u warrameen. kolkaasaa dadkii u soo baxay inay arkaan wixii dhacay. markaasay u yimaadeen ciise oo waxay arkeen ninkii jinniyadu ka baxeen isagoo ag fadhiyo ciise cagihiisa oo dhar sita oo miir qaba. wayna baqeen. kolkaasaa kuwii arkay waxay iyaga u sheegeen sida jinnoolihii loo bogsiiyey. dadkii oo dhan oo dadka gadarayni ku waraysanay ayaa beriyey inuu ka noqdo iyaga, waayo baqdin weyn ayay baqeen. markaasuu dooni fuulay waana noqday. laakiin ninkii jinniyadii ka baxeen ayaa ka baryey isaga inuu raaco, laakiin wuu diray isagoo ku leh, gurigaaga ku noqo oo dadka ogeysii waxa weyn oo ilaah kuu sameeyey. markaasuu tegey oo wuxuu magaalada oo dhan ku laadiyey waxa weyn oo ciise u sameeyey.